kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba waxa aad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dunida Somali Cable ayaad naga daawanaysaan waxaan nahay Maxamed Cabdiqani waxa aynu ku bilaabanaa ugu horeyn Pakistan iyo Hindiya xiisadoodii ayaa wali taagan iyada oo hadallo kulul ay warbaahinta isu marinayaan hogaamiyaasha dalalkaasi Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in wali mowqifkii Pakistan aysan waxba iska bedelin Islamabadna ay ka aargudan doonto Hindiya waxa uu sheegay dhiigii ku daatay Kashmir qaybta ay ka maamulaan in ay si degdeg ah u aargudan doonaan xiisadan ayaa ugu horeyn waxa ku soo baxay dalalka caalamka hogaamiyaashooda oo si weyn u dhaliilay go'aanka weerarka ay ku qaaday Hindiya Kashmir qaybta ay Pakistan ka maamusho sidoo kale xukuumadda Islamabad waxa ay sheegtay in go'aankan Hindiya ee weerarka ay ku qaaday uu yahay mid ay ku degdegtay oo aysan ka fiirsan hayeeshee cawaaqibkeeda ay la kulmi doonto waxa wali taagan xiisada u dhaxaysa Pakistan iyo Hindiya kadib markii Hindiya ay gantaalo ku weerartay Pakistan qaybta ay ka maamusho Kashmir oo labada dhinacba ay ku muransan yihiin labada aagna ay kala haystaan labada dal ayaa warbaahinta isu marinaya hadallo kulul ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Shahbaz Sharif ayaa waxa uu Hindiya ku sheegay inay tahay mid aysan go'aanada ay qaadaysa ka fiirsanaynin weerarka ay nagu soo qaadeen waa ay ku degdegeen waxaan se wacad ku marayaa in aan noqon doono kuwa aarguta ayuu hadalkiisa sii raaciyay xilli uu khudbad u jeedinayay shacabka dalkiisa waxa uu sheegay in Hindiya ay tahay tallaabo fulaynimo ah weerarka ay qaadeen waxa uu sheegay in ciidamadooda cirka ay sidoo kale soo rideen diyaarada laga leeyahay dhanka Hindiya oo drone ah wali ma aysan xaqiijin Hindiya dhankooda oo kama aanay hadlin dhanka kale dowladda Turkiga waxa ay ka hadashay xiisada u dhaxaysa dalka Pakistan iyo waliba dhigooda Hindiya kadib weerarkii ka dhacay Kashmir qaybta Pakistan wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa war ay baahisay waxa ay ku sheegtay in ay ka walaacsan tahay xaaladda ka soo cusboonaatay Hindiya iyo Pakistan isla markaana ay si dhow ula socoto arrimahaasi waxaan cambaareynaa tallaabo kasta oo kicinaysa rabshadaha iyo weerarada lagu beegsado dadka shacabka ah iyo waliba dhismayaasha ay degan yihiin rayidka aan waxba galabsan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxaan rajeynaynaa in tallaabooyinka la qaadi doono sida ugu dhaqsiyaha badan ay noqdaan kuwo lagu dejinayo xiisadda ayaa la sii raaciyay bayaanka la soo saaray ayaa sidoo kale labada dhinac waxa loogu baaqay inay iska ilaaliyaan ficilo hal dhinac ah sidoo kale waxa war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ka soo baxay lagu sheegay Turkiga in uu Pakistan ka taageerayo dalabka ah in baaritaan lagu sameeyo weerarkii 22kii bishii hore ka dhacay Pahalgam qaybta ay Hindiya maamusho oo 26 dalxiisayaal lagu dilay iyada oo Pakistan markii horeba ay iska fogeysay haddana Islamabad waxa ay sheegtay in ay diyaar u yihiin baaritaan daahfuran in lagu sameeyo si loo ogaado bal inay waxoogaa lug ah ku leeyihiin in kale inkastoo iyagu markii horeba ay iska bariyeeleen dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu ka fiirsanayo magaca loo bixinayo badda u dhaxaysa Iran iyo waliba sidoo kale wadamada Carabta madaxweyne Trump ayaa aqalka cad wariyaasha ugu sheegay in ka hor safarkiisa bariga dhexe uusan ka hor dhacin arintan balse ay marka horeba ay ka fiirsanayeen haddana ay ahaayaan qorshayaal magaca looga bedelayo inkastoo Iran ay si adag uga hortimid isku daygaasi Mareykanka madaxweynahooda uu wado haddana waxa uu sheegay in marka hore la tashiyo uu sameyn doono safarkiisa oo uu ku tagayo Qatar Saudi Arabia oo ku hormari doono kadibna Qatar iyo Imaaraadka uu sii mari doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu go'aan ka gaari doono magaca ay Mareykanka u isticmaalayaan biyaha u dhaxeeya Iran iyo wadamada Khaliijka Carabta inta lagu guda jiro booqashada uu ku tagi doono Sacuudiga kadibna uu sii mari doono Imaaraadka Carabta iyo waliba dalka Qatar Trump oo la hadlayay warfidyaanka aqalka cad waxa uu xusay in madaxda Carabta ay ka dalban doonaan in Mareykanku adeegsado magaca Gulf of Arabia halkii laga oran lahaa Persian Gulf isagoo sheegay in uu arintaasi ka heli doono warbixin rasmi ah ka hor inta uusan go'aan gaarin
biyahaasi oo si weyn loogu muransan yahay magaca loo yaqaan ayaa Iiraan u aragtaa in Persian uu yahay magaca saxda ah taariikhiyan sax ku noqonaysa halka wadamada Carabta sida Sacuudiga iyo Imaaraadka ay adeegsadaan magaca Arabian Gulf. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa waxa uu si adag uga hor yimid suurtagalnimada bedelka magaca Mareykanka uu damacsan yahay isagoo ku tilmaamay arrin mid ujeedo xun ka dhalan karta shacabka Iiraanna ka dhan ah waxaana uu ka digay tallaabadaasi keeni doonta carab ballaaran oo ka timaada dhammaan shacabka Tehran. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in Washington ay ka digtoonaato tallaabooyinka ismaqiiqa ah ee ay sameynayaan. ugu dambeynna Ukraine waxa ay ku eedeeyeen Ruushka in xabad joojintii bilaabatay ay ka hor yimaadeen Ruushka kadib markii bay yiraahdeen ay duqeeyeen gobolka Sami. Ukraine waxa ay ku eedeysay Ruushka in weerar cirka ah uu ku qaaday gobolka Sami iyada oo uu dhaqan galay heshiis xabad joojin ah oo madaxweyne Vladimir Putin ku dhawaaqay muddo 3 maalmood ah kuna beegan xuska 80aad ee guushii midowgii Soviyetka ka gaaray Naziga Jarmalka. taliska ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in diyaarado dagaal oo Ruush ah ay 3 jeer duqeeyeen gobolka waqooyi ee Sami xilli hore oo saqdi dhexe ah xilli xabad joojinta ay bilaabatay saqdi dhexe ee waqtiga maxalliga ah. madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Ukraine aysan ka laabanin dalabkii ay horey ugu bandhigtay Moscow ee ahaa in la hirgeliyo xabad joojin 30 maalmood ah si fursad loogu siiyo wada hadal nabadeed balse waxa uu cambaareeyay tallaabada Moscow ee xabad joojinta 3 maalmood ah isagoo ku tilmaamay been iyo marin habaabin. inkasta oo Ruushka uu sheegay in ciidamadiisu aysan weerar qaadi doonin inta lagu jiro xuska haddana Ukraine ayaa sheegtay in aysan helin wax jawaab rasmi ah oo ka timid dhinaca Kremlinka oo ku aadan xabad joojinta dheer ee ay soo jeediyeen halka weerar cirka ah ay mar kale ka dhaceen labada dhinac ka hor iyo waliba kadib bilaabashada heshiiska xabad joojinta. وهجاج ورركي عالم كا أياد دعوانيسين وحي سكر ده هالكان أيان نومد الله تاني كلن دب نبت قليل. إنترنت بلاس وأذيك مع مشو كهلي كران إنترنت فايبر وهذا اللي أي بي تي في ولا صعد الرسيفر يكون جيران إنك بدن أفر كون أو كنال إنترنت كجوريها كشبه شن يلا $2 أو هيل إنترنت حواريه سوية هي 20 ميجا بايت بير سكند يلا بقول دقيقة أو هذا الجودها أما كشبه $60 أو هيل إنترنت حواريه سوية هي 60 ميجا بايت بير سكند يلا بقول دقيقة أو هذا الجودها إنترنت كحفيز هذا كشبه $50 أو هيل إنترنت حواريه سوية هي 55 ميجا بايت بير سكند iyo 400 daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisa uu yahay 110 mega byte per second iyo 700 daqiiqo oo ku hadal gudaha dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank